Puntland hodanto horay u kacdo hawraarsan layidhi halkaad ku wadaan dhammaanka helo la soo hambaliye munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo daba socotay munaasabadii shalay ay Puntland ugu dabaaldegtay 22 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay dowladda Puntland ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee magaalada Garowe waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu ugu horeeyo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh sidoo kale munaasabada waxaa lagu casuumay shakhsiyaad caan ka ah geeyiga Soomaalida sida aqoon-yahano abwaano iyo fanaaneen ugu horeyn munaasabada intaysan bilaaban waxaa dadka heeso ka turjumaya aasaaskii Puntland goobta ka qaaday fanaaniinta kale ah Yurub Saciid Cabdi Yurub Geenya oo ka socota magaalada Hargeysa ee Somaliland iyo Suldaan Zeraar Guhaad oo ka soo kicitay magaalada Jigjiga ee deegaanka Somali State iyo kooxaha hobalada Puntland maanta waa door wana dawladda xalgala wana dayirka nabado dada qoon leba hawada hoggaan sugan bahayanka wado horseedkii la diray la daragno hubaan cusub la deer lagu furay khudbadaha ay jeediyeen dadkii ka soo qayb galay munaasabada kadib madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa khudbado dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay goobta waxaan jeclahay inaan marka ugu horeysa halkan hambalyo uga diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland gobol iyo degmo iyo tuulo iyo miyi iyo meel kasta ay ka joogaan gudaha dalka Puntland iyo sidoo kale daafaha dunida iyo dacaladeeda meel kasta ay ka joogaan waxaan ugu hambaliyeynayaa sanad guuradan 22aad ee aasaaskii Puntland waxaan leeyahay farxad ku ciida waxaad muujiseen dabaaldeg qurxoon waxaad muujiseen isu soo bax damaashaad dal iyo dibadba ka dhacay waxaan rajaynayaa inay arrintaasi qayb ka qaadato jiritaanka iyo midnimada Puntland iyo Soomaaliyeed oo loo aasaasay mudanayaal marwooye waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta sharafta faraha badan ee aan idin soo jeedinayo marlabaad waxaa sharaf noo ah dhammaanteen inaynu u dabaaldegno sanad guuradii 22aad ee ka soo wareegatay aasaaskii dowladda Puntland waxaan laga mahadnaqayaa guulihii iyo waxqabadkii faraha badnaa ee halka caawa looga sheekeeyay ee u horeysay dhismihii hanaankii dowladnimo adkeyntii amniga iyo taabagelintii horumarka dhaqaalaha siyaasadda iyo adeega bulshada waxaan bogaadinayaa isku tashigii reer Puntland horumarkaas ay ku gaareen waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay sii wadaan halgankaas si loo gaaro hadafyadii loo aasaasay Puntland oo ay ka mid tahay yagleelidda dowladda dhexe ee federaal ku dhisan kuna dhisan maamul wanaag iyo sarreynta sharciga waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa aasaasiyaashii Puntland ismo siyaasiyiin waxgarad haween dhalinyaro ganacsato iyo qurbo joogba dhammaan sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabkii iyo xoogagii ka qayb galay oo isugu jiray ciidankii iyo shaqaalihii kala duwanaa oo ay ka mid ahaayeen fardooleydii u bixiyey Puntland haweenka 9 gobol walaalaha Puntland ardayda dhalinyarada shaqaalaha gaar ahaan caafimaadka beeraha kalluumaysiga shirkadda korontada dabdamiska ciidamada taraafikada asluubta booliiska difaaca xeebaha ciidamada difaaca Puntland qaybahooda kala duwan sida daraawiishta iyo daraawiishta qaybteeda cigaaleyda ahayd commandos iyo gaadiidka gaashaaman dowrkii weynaa ay ka qayb qaateen damaashaadkii saaka ka soo bilowday bartamaha magaalada Garowe waxaan dadweynaha reer Puntland
ee ku damaashaadaya gudaha iyo daafaha dunida iyo dhammaan walaalaha meelaha fogfog dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inooga yimid si ay xuskaan inooga qayb galaan waxaan si gooniya ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo waftiyadii la socday mudanayaal iyo marwooyin maanta waa maalin weyn waa maalintii la aasaasay dowladdii u horreysay ee xubin ka noqota dowladda federaalka waa maalintii la ansixiyey dastuurka ku-meelgaarka ee soomaaliya looga saaray ku-meelgaarka waxaan u jeedaa 1 Agoosto waa maalintii u horreysay ee la aasaaso dowlad ku dhisan federaal burburkii 19 kadib wax la habeeyay caawa ma jirto mid gabay ku dhammaystira ilaa 98 iyo asaaskeedii mid riwaayad ku soo bandhigay iyo heeso mid history oo odayaashii joogay wixii aan odhan lahaa ama la odhan lahaaba waa la yidhi runtii waxaan kaloo idiin sheegayaa waxaa dowlad ahaan dowladda Puntland waxaa loo yidhi qaarkeeda hore waxaa loo yidhi guddoomiyaha baarlamaanka qaabka dhammaystirkana waxaa noo odhan doonaa madaxweynaha dowladda Puntland halkan 2 erey baan ka odhayaa mid waxaa halka kale iga muuqda boqor Cabdullaahi oo yidhi maxay tahay qolyihii iscadaynayay sool iyo sanaag waxaan boqorku askarina waa ahaan jiray macid faqaysuu maqlay oo maxay tahay farta ku godaysa sool iyo sanaag iyo cayn masiirkooda iyo mustawahoodu meesha ay yihiin halka kan sidii ay uga samaysteen bay yihiin Puntland xubinta number 1 bay ka ahaayeen midna waa idiin sheegaya qolyaha isaaqaasa waxay dhahan beri ay cigaal waxay jireen bay waxay dhaheen adigaaba calanee nolob cigaal anigu waxaan qabaa sool iyo sanaag iyo cayni inay iyagu Puntland ba yihiin Puntland ba ay aasaasteen oo yihiin taariikhduna waxay sheegaysaa markii lagu heshiin waayey inay dee waxaa joogay madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole iyo ragga badan markaana ma ay iyagu kuwii loolamayay ma ahayn oo markaa wax doonayay laakiin waxay doonayeen Puntland sidan ay maanta tahay noqotaa kadib markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya Puntland waxay ahayd meeshii ay u soo qaxeen dadkii Soomaaliyeed ee colaadahu ragaadiyeen waxayna dowladda Puntland iyo shacabkeeda ay ka heleen soo dhaweyn iyo dibadajin Puntland 21 sano nabad iyo baraare ah Cabdulaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdulaahi Bakayle telefishinka caalamiga Real TV magaalada Garowe